maamulada Gabiley iyo Wajaale wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta sugootiyay wafdi uu hogaaminayay Garaad Kulmiye Garaad Dool Garaad Maxamed Garaad Wiilwaal wafdigaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay socdaal ku joogay bariga Soomaaliland isla markaasna saaka ka gudbay xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya ka dhacday deegaankeena ka dhacday soo damiyay waajibina wada saarnaa oo dadkeena saarnaa iyaga ilaahay ku soo guuleeyay una qumay waqti dheer iyo taraag dheerna ku lumiyay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa salaan kadib waxaan aad uga mahadnaqaynaa sida mugale walaalnimada leh ee helnimada leh noo soo dhaweyseen noona sii sabootiyeysaan degmada Wajaale iyo gobolka Gabiley dadweynihiisa iyo maamulkiisa waan u mahadnaqaynaa wasiiradiina la socday ilaa intaan soo galnay xadka Soomaaliland la soo daadahaynayay in dawlad iyo shacab iyo ismaba aan loo kala hadhin koow ka yahay madaxweynaha أحمد محمد سيلايو مدحوينه ku-xigeenka Abdiraxmaan Saydici wasiir rada maantii waxaan Ilaahay idin ka baryaynaa miisaankiina xasanaadin Ilaahay shidin kordhiyo la socota garaadada oo inala joogay ilaa daraad ilaa habeen hore marti inoo aha kana yimid bariga Laascaanood koonfurteeda oo ay ka soo hawl galeen arrinkii barigii ku dhaxmaray dadka walaalaha halkaas oo ay ku soo dhameeyeen oo ay soo afjareen wasiiradii Soomaaliland ma la socda wasiir gumaysiga ugu horeeyo waxa kale oo la socda madax dhaqameedyada Soomaaliland si u dhayiin ba la socda aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaa haddaan nahay maamulkii degmada Wajaale waxaan kan soo marna ku soo dhaweynay gobolka Gabiley imikana aan ku sagooteynaa Garaad Kulmiye Garaad Maxamed iyo wafdiga hogaaminaya ee salaadiinta iyo isku jirta gurmadka u yimiday shaqaaqadii ka dhacday ay soo damiyeen imika dalka faraxsanahay inaanu garaadka maanta halkan kula kulano haddaan nahay dadweynaha degmada reer Wajaale waxaan u leenahay garaad nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxay waajib inoo ku yeesheen inaynu ku soo dhaweyno Soomaaliland u mahadnaqno oo ay xaq inoo ku leeyihiin arrin geesinimo ay qaateen Mukhtaar Nuux Ibraahim Home Cable TV magaalada Wajaale